السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي قيمة بدن maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkana maanta waxaynu ku qaadanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo systemkeena qaybtiisa saddexaad. Waxaan kusoo guda jirnay waxaan soo sameynaynay system oo aan ugu magac darnay school management system oo aan ku sameynaynay programka la yiraahdo Microsoft Access Database. Casharkay ka horreeyay waxaan kusoo qaadanay information ama registration qaabka loo sameeyo. Registerkaan soo sameynayna qaabkan ayaan ka dhignay oo waxaan usoo sameynay waxa la yiraahdo ardayga ID ayaan u sameynay, magaciisa koowaad, magaciisa labaad, magaca hooyada oo dhammaystiran, lab iyo dhadig ardayga waxa uu yahay, taariikhda uu dhashay, meeshuu ku dhashay, shiftigu uu dhigto iyo sidoo kale taariikhda ardaygan la diiwaangeliyey. Okay, casharkeena qaybtiisa saddexaad maanta waxaan ku qaadanaynaa isla tablekan la mid ah, laakiin tablekaas waxaan ku diyaarinaynaa hadduu ilaahay yiraahdo koorso. Tusaale ardayga markuu iska soo diiwaangeliyo iskuulka wuxuu u baahan yahay koorsadii uu baran lahaa inuu xusho. Table ayaan weli gudaha kaga jirnaa. Okay, sidee ayaan u abuurinaa table? Hore ayaan usoo aragnay, waxaan imaanaynaa halkan ay noogu qoran tahay create. Kadibna table design ayaan ka imaanaynaa. Halkan ayaa inoo soo baxayso ah field name iyo data type. Field name iyo data type registerkii hore ama tablekii hore ayaan aad ugu soo sharaxnay, markaan kuma dheeraan doono sharaxaad hadduu ilaahay yiraahdo. Okay, qaybtan koowaad waxaan gelinaynaa hadduu ilaahay yiraahdo course ID. Koorsada waxaan u sameynaynaa ID. Okay, ID-na waxaan data type waxa uu ah auto number. Maadaama auto number aan siinay, systemka ama programka isaga si automatic ah 1 2 3 isaga isu qori doono. Aniga noogama baahna maadaama auto aan ka dhignay. Okay, koorsada haddii aan ID u sameynay waa inaan helnaa meel aan gelino ardayga magaciisa, student name, magaca ardayga. Okay, short text waa data typeka. Short text ayaan qaadanaynaa maadaama waxaan isticmaalayna uu yahay qoraal uu yahay. Okay, qaybta saddexaad koorsada inaan magacaawno, course name, koorsadan inaan magacaawno. Okay, koorsada inaan magacaawno marka laba option ama laba dariiqba way noo furantay. Kow, data typeka koorsada inaan ku dayno short text. Ardayga hadhow inuu noo sheego, tusaale u dhaho waxaan u baahanahay basic computer inaan barto, aan u qorno caadi basic computer ayuu ardaygan bartaa inaan u qorno, ama inaan ka dhigno wax la yiraahdo look up wizard. Data type inaan ka dhigno look up wizard, koorsooyinku iskuulkan uu bixiyo inaan halkaa aan kusoo qorno ama gudaha aan ku diyaarino, hadhow selection aan ku sameyno doorasho ah. Okay, halkan ayaan ku dhufanaynaa look up wizard, daaqadan noo soo baxayso. Kadibna I will type in the value that I want. Halkan ayaan ku dhufanaynaa, next ayaan leenahay, daaqadan ayuu inoo soo tallaabaya. Okay, daaqadan waxaan leenahay koorsooyinka aan bixino waxaa ka mid ah, halkan ayaan kusoo xareynaynaa basic computer. Okay, graphic design. Okay, sidoo kale aan dhahno languageska ama English ayaan bixinaa. Okay, koorso afraad ayaan ku darsanayna oo ah video editing, waa muuqaal hagaajinta, video editing. Okay, afartan koorso ayaan si simple ah aan u qaadanaynaa. Kadibna waxaan leenahay next. Waa sidoo kale ardayga wuxuu baran karaa ama wuxuu dooran karaa labo maado oo kale ama laba koorso oo kale ayuu arday isku qaadan karaa. Haddaan u baahanahay marka doorashada inaan badino, waxaan tig saari doonaa meeshan ay ku qoran tahay allow multiple values. Haddii halkan aan ku dhufato micnaheedu waa maxay? Halkii qof wuxuu awood u leeyahay laba koorso inuu doorto ama inuu xusho. Okay, kadibna finish ayaan leenahay. Okay, waxaan diyaarinay magaca koorsada ayaan diyaarinay. Okay, sidoo kale waxaan diyaarin karnaa course lecture. Koorsadan macalinka dhigaya ama lecture-ka dhigaya waa iyadana sidoo kale gudaha ayaan ku diyaarin karnaa. Nidaamka hadda oo kale macallimiinta meesha ka howlgasho kale waa aan u diyaari karnaa, laakiin short text caadi ayaan ku daynaynaa. Okay, lecture-ka ama macalinka bixin lahaa koorsada, maadaama aan sheegnay koorsadan in intee la eg ayay soconaysaa durationka. Okay, waxaan u sameynaynaa iyadana short text, maadaama number iyo qoraal israacayaan, short text caadi ayaan siinaynaa. Okay, xilliga koorsada ay soconayso. Okay, koorsadan lacag intee la eg ayaa lagu bartaa ama lagu dhigtaa? Waa course V. Okay, wixii V ah ama wixii lacag soo hoos gala waa waxa data type uga dhigayna wax loo yaqaano currency. Okay, koorsada
waa maarata dee hadhow $10 $15 wax lala wuxuu ku dhigto halka ayaad u gelin doontaa. Okay, waxaan kusoo gabagabaynaynaa marka wax la yidhaahdo registration date. ardaygan taariikhdu isdiiwaangeliyey hadhow haddii aan u baahano inaan systemka dib aan ugu raadino inaan heli karno. Registration date aan dhaho. Okay, registration date halkana waxaan ka dhiganaynaa date and time ayaan ka dhiganaynaa. Okay, qaybta ugu koreyso course ID-ga waxaan kusoo xiraynaa wax la yidhaahdo primary key ayaan ku xiraynaa, kadibna s ayaan leenahay waan save garaynaynaa, kadibna waxaan ku qoranaynaa course table ayaan ciwaan uga dhigaynaa, kadibna okay ayaan leenahay. Okay, markaan dhahno qaybtan tableska aan isla eegno ama isla fiirino waxaa inoo soo galay wax la yidhaahdo course table ayaa inoo soo galay. Okay, aan soo kicino course table open aan soo dhahno formkiisa iyo qaabka uu ekaaday. Okay, qaabkan ayuu ekaaday, sambal aan ku tijaabino hal arday aan diiwaan gelino. Okay, aan kasoo qaadno arday la yidhaahdo waa maarata cumar, waa maarata arday la yidhaahdo cumar cabdi cumar. Okay, wuxuu iska diiwaan geliyey koorsadan ah basic computer ayuu iska diiwaan geliyey. Waan u dooranaynaa tik ayaan u saaraynaa, kadibna okay ayaan leenahay hashaas koorsa iska diiwaan geliyey. Okay, basic computer macalinku dhigo. Okay, aan dhahno waxaa u dhigo tusaale waa maarata teacher socdaal aan dhahno. Okay, teacher socdaal. Durationka koorsadan ama basic computerka ay soconayso waa imis oo kale, tusaale 6 months. Okay, 6 bilood ayay koorsadan soconaysaa. Okay, fiiga ugu maarata lagu baranayo koorsadan waa meeqo? waa $15 lagu bartaa. Okay, taariikhda ayaa la diiwaan geliyey, halkaasaan furaynaa today ayaan ku dhufanaynaa. taariikhda isla maalinkaas la joogo ayuu inoo soo saari doonaa. waslahayna soo maha. Okay, course table marka sida ayaan ku abuurnay. Okay, sidoo kale hadda waxaan maarata kaa codsanaynaa maarata dee inaad systemkii aad soo furato aad nala baratikayso. dee theory ma ahan, waa practical. inta aan samayno kale in lamid ah waa inaad samaysaa, dadaalka aad badisaa. guul ayaan ku rajaynayaa. cashirkeeni saddexaad halka ayuu nooga egyahay. sidaa ay nabadgeliyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan haddaad ku cusubtay channelkeena subscribe inoo saar, like-ta nagu dhiirigeli, wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faalooyinka.